بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ السلامي ولاليك قاليقة ميل والبا أدونك دعالذي سكجوكتان إي وقت والبا إذي تهاي أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم صباح ونكسن مر لبعض ولاليك قاليقة وحارجينا إن فرحات دي عافمات كسوة التوستين انت حنوني عاجز تريمي سألها كقاضي انت عافمات تريمي سإله أسيا دي عافماتك ولاليك قاليقة كسوة دواد مر لبعض روتين كيني janalkeena waa myhami janal magacayga waa xamdi waxa idinku soo dhaweynayaa mar walba ee farxad walaaleyga qaaliga ah ugu horeyntii insha Allah waxaan soo gagatay alaab yar maalin horeeto soo alaabtii idin lama soo qaybsanin laakiin hadda ayaa idin la qaybsanaya insha Allah waxaan soo gaday digsigan oo pressure cooker-ka kii horeeto iyaalay wuu qayli jiray qiiqadiisan ku dhahay dadka diriska dhan isku soo kacayay laakiin kan ki qaylinaya ma ahan saasa u soo qaatay waana 5 litir uu kala waaweyn yahay 5 litir wuxuu leeyahay 9 litir wuxuu leeyahay 7 litir soo aniga kanan soo qaatay 5 litir insha Allah meesha ka soo gaday leeygu soo xirxiray because marka keentid guriga daad ku xirxira boola ka maqnaa karo meeshii leeygu soo xiray soo insha Allah ilaa mid fiican ha nooga dhigo digsiga kan ayaan soo qaatay markii ugu horeysay kan noocan aan soo qaato laakiin awal hore waxaan isticmaali jiray mid ka qayliyo isticmaali jiray kaasa iyaalay insha Allah sida loo xiraayo waa fudud yahay hadii ay ilaashatid boolashiisa iyo wax walba waa gacan ku heen insha Allah wuu iska fiicnaanaya wax badan ma soo gadanin waxa kale soo gatay geedkan oo jikada sinkiga saabuunta iyo steel wire-ka iyo lagu rito waxa ku xireysaa wuxuu leeyahay badhan waxa ku xireysaa daaqada ama tubada ku xiraneysa halkan waxa kale igu jiro jelmad yariis oo dhoob masha Allah jelmadan iska jeclahay masha Allah jelmadan yariista ee dhoobka kaligeedna waa la helaa ayadoo sad oo koob wadatan waa la helaa soo aan midan kaligeed ayaa soo gatay masha Allah koobkaada 2 koob uu ku deeqayaa qaxwe ah ku dhahay daftaada hadda u diyaarsanaysid masha Allah hadee marti ku imaato hal qof hadda xaajiga quraac ugu geynaysid ama casriye kale iska arag waxa kale oo aan soo gatay alwaaxan oo aadka u jeclay in badan aan raadi jiray supermarket-yada marka supermarket aan tagay meesha maacunta ee taal waa ka fiiri jiray laakiin alxamdulillah maanta soo helay waxaan soo qaatay labadan xabo midka afargeeska oo gacanta leh iyo midkan round-ka masha Allah labadan xabo aan soo qaatay fiidiyoga horeeto waa aragteen anigoo marka cashada diyaarinayay laakiin idin lama soo qaybsanin fiidiyogaas fiidiyoga waa duubay laakiin habeenkaas way ii suura gali weysay inaan soo geliyo aad horta waxa ugu mahad celinayaa asxaabteyda qaaliga ah mar walba igu xiran wallahi fiidiyogankii ka horeeyay markaan soo geliyo commentiyadiisa qalbiga aad iga taabteen walaaleyga qaaliga ah ilaahay dartiisa aan idin jeclahay waana mahadsantihiin waxa tihiin garbaheyga Allah idin karaameeyo Allah idin sharfo waxa u mahad celinaa qof walba oo channelkayga subscribe saarayna aad ugu mahad celinaya jasaakumullahu khayr alif khayr walaaleyga meel walba aad joogtaan qof walbeeto oo muraad leh qof walbeeto oo dan leh ilaahay subhanahu wa ta'ala muraadkiisa u sahlo inta awlaad haysata ilaahay u barakay inta awlaad haysan Allah siiyo inta awlaad ka xanuunsanta caafimaad Allah u siiyo ugu horeynta waxaan sameysanayaa cake ayaa sameysana insha Allah waxaan soo laalaabay streshooyinkii sheekada ayaa iga soo dhaxgashay waxaan ku soo ritay 5 xabo ukun bakeeri halfkiisa oo sokor waaye half oo yar waaye halfka saaid ma u badneen keegan waxaan rabaa in aan ku sameeyo jam marka sokorta sidaas uga yareeyay insha Allah 5 xabo ukunta aheeday iyo waxa isku qasaaya
sokortii waxa kaleeto aan ku soo darsaday vanilla keeg cabaaran qasaya ukunta iyo sokorta insha Allah marka ukunta iyo sokorta isku qaso isku soo dhalaalaan waxaan ku darsan doonaa insha Allah hal qaando oo ah jam ayaan ku darsanaa insha Allah jamka isticmaalayo waa midka gaduudka jamka haddana hal qaantaan ku daray si uu taste gudaha uga sameeyo hadhowne dhaxdan ka mari doona insha Allah waana arkeena waa keeg yar oo fudud waxaa dhici karta in caruurta dukaamanka uga soo gid asigoo baceysan laakiin caruurta guriga ugu sameyn kartaa ma sha Allah asigoo easy ah qarash badan aan ka gelin waxa uga sameynaysidna ogtahay ma sha Allah halkan waxa ku soo shubanaaya 2 bakeeri iyo wax yar oo bur ah ayaan ku soo shubtay insha Allah waxa kaleeto aan ku soo daray ukuntii bakeeri haafkiis saliid iyo bakeeri haafkiis caano aan ku soo daray burkii waxaan ku soo daray baking powder qaandada teaspoonka labadeeda hadaa rabtid qaandada cuntada lagu cuno table spoonka ayadoo buuxdo ayaa ku darsan kartaa waa isku soo qasaya insha Allah mar wada idinku celi doonaa keeg waxyaabaha aan ka sameeyay waxay tahay 5 xabo ukun bakeeri haafkiisa oo sokor haaf laakiin yar waaye bakeeri haafkiisa caano bakeeri haafkiisa saliid hal qaando oo jam ah 2 qaando oo teaspoon oo baking powder iyo 2 bakeeri iyo wax yar bur halaas ka sameey insha Allah saxanka weyn ayaa isticmaalaya hadhowna dhaxdan ka kala jara waa isdul saari doona insha Allah anigoo dhaxda ka mari doona jamka sidaas u fidinaya insha Allah waxaan rabaa inuu geesaha dhan uu ka gaaro insha Allah waxaan gelinayaa foornada 180 hoos bisaan uga shidaya hadhow markaan ka soo bixi rabo hoos markaan ka soo bixinayo hoos waa ka diminaya kora uga shidi doona insha Allah 2 daqiiqo hadda waxaan sii qasanaya insha Allah bariis biyo la sii dhigaa insha Allah maanta bariiska wax lagu ma kari doono waa hilib ama chicken ah waxba lagu ma kari doono insha Allah waa bariis bila hilib ah laakiin qudaar lagu karinayo aadna u macaan insha Allah caruurta saaka waxaan siiyay mushaarida aan siiyay waa mushaarida madowda ah ama weynbida waaye ma sha Allah caruurta aad ugu wanaagsan tahay dadka weyn xitaa wanaagsan tahay calcium ay leedahay fiber ay leedahay iron ku jirto ma sha Allah aad ugu wanaagsan tahay caruurta dadka waaweyn intaba subaxa hore waxaan sii saaka mushaariyo insha Allah soo saas la socda quraac kala saaka ma karinayo quraacda iskuulka loo qaadanayo waa keeg dabka waxaan soo saartay 2 digsi kaas waxaan ku kari doonaa insha Allah spinach kana waxaan ku karinayaa bariis labadooda basalan ku soo shubay yaanyada waa isku la soo shubaya insha Allah yaanyada waa soo wada jarjaray waxaan soo jarjaray 5 xabo yaanyo waxaan ku soo daray digsi waxaan ku kari doonaa spinach waxaan ku soo daray 2 xabo kaarooto kana waxaan ku soo daray digirta cagaarka ayaan ku soo daray waxaan ku soo daray 6 xabo oo baamiye asna aan soo jarjaray hadda waxaan ku darsan doonaa insha Allah spinachki aan soo dhaqay spinachka waxaan sameeyaa hal mar wax badan kariya fridge-ka iska gashtaa soo hada wax ku cunaysid waa iska soo baxsanaysaa kastaada bacyaala ku xirxiran hadaa rabto meesha barafka gashanay hadaa rabto meesha hoosa gashanaysaa soo spinachka markasteed waan iska karsadaa hadii aa hooyo tahay aad uu ku anfacaya caruurta waxa ku siin kartaa adiga waxa ku cuni kartaa ما شاء الله markay spinach kan qasi doona insha Allah waxa kale aan ku soo daray 2 xabo rayka kayub waa isku soo huuriyay yaanyadii way soo shiilmatay waxaan ku soo daray baradho 4 xabo oo xogaa yar yar aheeday waxa kale aan ku soo daray heel 5 xabo waxaan ku soo daray qarfo waxaan ku soo daray bay leaf إن شاء الله بريسكي وحاكو صدر لبا حبو أو choice قرفو هل حبه هلها ساكو صدري ما شاء الله بريس كان آد ومعاني هاي مالنتي لكريميلو كدعي آلوين هاي ما شاء الله وحيلب إهنكو مدريسيت وحافي عن مال هيلب إنا جب كسيسيت ما شاء الله هيلب مالك استيت عاف ماد ما أهان جيكن وكالواسي كرتا لكن ما انتي
waxaas dhan kuma jirnaan ku dhahay halkan waxaan ku haystaa plain yogurt bakeeri halfkiisa waxaan ku soo daray paprika waxaan ku soo daray xawaaji dhudhub waxaan ku soo daray bilaw masala waa isku soo qasay waxaan ku daray suugadii ii karsamaysan ku daray maasha Allah bariiska marka yogurtka ku karisid plain yogurtka aad u macaan yahay hal xabo jumba iyo cusbo isku la soo daray waxa kale oo ku soo daray hal qaando oo ah prestige maasha Allah waa isku qasi doona insha Allah bariiskiina wuu ii dhaqan yahay bariiska aan ku soo daray oo biyo aan ka soo miiray nus saac iyo bariiska biyaha la yaalay waa isku shiilaya insha Allah waxa ku soo daray sabiib waan isku sii shiilaya waxa fridge-ka iigu jira maraqay chickenka ayaa iigu jira fridge-ka waan soo bixina insha Allah microwave-kan gelinaya waan soo kululeena bariiskan ku kari doona insha Allah maraqii waxa waay chickenka aan ku karinayay soo fridge-ku iigu jiray waan soo bixina waan kululeenaya maraqaasaan ku dari doona insha Allah hadda inta maraqa microwave-ka iigu sii jiro wax yariis biyo ayaan ku sii darsanaya insha Allah bariiska maasha Allah bariiskan ku dhahay lagama sheekeyn karo aad u macaan yahay maasha Allah maasha Allah si fiican u sii shiilaya kadibna wax yar biyo ah ku soo daraya insha Allah kadibna maraqii ayaan ku soo daraya afwan yogurtka markii aan soo qasayay waxaan ku daray paprika haruut bilaw masala xawaaji dhudhub iyo wax yar filfil halaas ayaan ku soo qasay bilan yogurtka wuxuuna ahay bakeeri halfkiisa spinachki waa diyaar dabka waa ka daminaya insha Allah spinachka waa diyaar yaanyada wax yar ku soo jijibinaya kadibna dabka waa ka daminaya maasha Allah ujeedaan saas oo inoogu soo baxay dabka waa ka damiyay spinachka kaal iska arag kaagiina way noo soo baxay waa diyaar oo ujeedaan maasha Allah wuu soo qaboobay waxaan ka gidinayaa saxankii shabaqaas ayaan saartay waxaan soo qaatay mastarad waa cabiri doonaa si uu cabir isla eg oo iigu noqdo insha Allah dhaxdaan ka kala jaraya kadibna waxaan soo qaadanayaa saxan waxaan rabaa qaybtan koreeto in aan ka mariyo jaamka marka mariyo jaamka geesaha dhan si fiican aan wada gargaarsiyo haddana waxaan soo saari doonaa insha Allah qaybtii kaleeto ayaan soo saari doonaa insha Allah maasha Allah kadibna waan jarjaranayaa maasha Allah sidan ay noogu soo baxay bariiskii maasha Allah walaaliga qaaliga waxaan rajeenayaa inaad ka hesheen fiidiyogeena quruxda badan waana idin mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba dhamaantiinba kommentiyadiina aad ku quruxda badan jasaakumullahu khayran walaalaha qaaliga igu soo biiriso dhawaada channelka waa channelkiina hadduu subscribe ku ahaan please subscribe noo saar gambalelkana on ka dhigo walaaliga qaaliga jasaakumullahu khayran alif khayr hore noo wada insha Allah intaan iyo inka badan inaan gaarno ayaan rajeenayaa insha Allah adinkana waa idin mahad celinaya fiidiyoashana sii share gareeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi